kulan wacan daawadayaal halkan waa nuxurka wararka ku soo dhawaada warar warbixino iyo falanqeyn aanu halkan ku soo baahino waxyaabaha aad ku daawan doontaan barnaamijkan aan idinku soo gudbin doona hadduu ala weyn raali ka noqdo daawade waxa ka mid noqon doona oo aanu barnaamijkan ku soo gudbin doona Odawa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa uu fashilinayaa Xasan Sheekh Maxamuud dhaqdhaqaaq uu wado maxay tahay sababta Odawa Yuusuf Raage loogu eedeynayo fashilinta dhaqdhaqaaq uu wado madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ee ka dhanka ah ururkaasi Al-Shabaab sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan idinku soo gudbin doono hadduu ala weyn raali ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal waxa ka mid noqon doona hubaal la'aanta wali ku gadaaman soo celinta askarta Soomaalida ah ee ku magan dalkaasi Eritrea waxaanu eegi doonaa warbixin aanu dhinacyo badan ku jeexi doono kuna falaqeedi doono hadduu ala weyn raali ka noqdo maxay ka dhigan tahay madaxweyne Xasan Sheekh uu laba jeer ku noqnoqday dalkaasi maxay ka yiraahdeen waalidiintii dhala ubadkaasi maxay dadka Soomaaliyeed iyagu hadal heentooda ay ku macneeyeen barnaamijkan ayaanu ku jeexi doonaa kuna falanqeyn doonaa saaxiibada iyo asxaabta sida tooska inoogu xiran soo dhawaada oo ku biira daawadayaashii inoogu xiran si aad u heshaan warar warbixino iyo falanqeyn fadlan ha ilmaamin inaad leeg saarto aad la wadaagta saaxiibadaada adigoo qaybta hoose araadaada waxay kula tahay ku dhaafaya daawade mar kale kulan wacan ayaanu hawadeedii kale nahay daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska halkan wararka warbixinada uga qaata aynu ku bilowno Odawa waa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa lagu eedeynayaa in uu fashilinayo dhaqdhaqaaqa Xasan Sheekh Maxamuud oo ka wada guud ahaan dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage ayaa bilaabay sida la sheegayo bixinta awaamiir uu ku dhabar jibinayo dagaalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda gaar ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolada Galmudug iyo Hirshabelle kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo ka socday la sheegay amar awaamiir ka timid Odawa in markaasi ay kaga soo dhaqaaqeen qaybo ka tirsan furimaha toddobaadkii hore Odawa ayaa faray saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku sugnaa deegaanada ku xiran degmada Aadan Yabaal in ay ciidanka dib ugu celiyaan Cadalle taas oo sababtay in ciidanku uu kala jabo qayb ka mid ah saraakiisha ayaa diiday amarka Odawa Yuusuf Raage ciidamada hogaaminayaan saraakiil beel hoosaad la ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ciidanka deegaanka ayaa hadda ku sugan deegaanka Nuur Dugle waxaana dib uga baxay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa gaarka ah ee Danab qayb markaas ay ka yihiin taliyihii hore ee Danab Ismaaciil Cabdi Maalig oo kamid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka dhawaan gacanta ku dhigay deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud ayaa warbaahinta u sheegay in taliska ciidanka xoogga dalka ay amreen in ciidanku ay ka baxaan Wabxo deegaanada uu amray Odawa in dib looga baxo ayaa ah kuwa istiraatiiji ah marka la eego xoreynta Ceelbuur iyo Aadan Yabaal deegaanadaasi maalmo badan ayaa qaadatay inay gacanta soo galaan dhiig ayaa ku baxay iyo nafo dagaalo qaraar ayaa ka dhacay kadib ayaana laga saaray ururkaasi Al-Shabaab sidoo kale Odawa Yuusuf Raage wuxuu horay ciidanka dawladda ee gacanta ku dhigay deegaanka Ceella helaya gobolka Galgaduud ku amray inay dib ugu laabtaan Dhuusamareeb taasi oo keenaysa in dhammaan howlgalkii qorsheysnaa uu markaasi fashil u dhawaado General Odawa wuxuu qayb ka ahaa taliskii ciidanka ee sida dhow ula shaqeynayay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin kuwaasi oo aan maalin qura ogolaanin dagaal la gala kooxda Al-Shabaab haddana aan guulo u ogoleen ayaa la leeyahay dawladda hadda talada haysa Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo dhinaca kale saraakiil kaalin muuqato ku lahaa ciidankii badbaado garan ee Farmaajo u diiday muddo kordhintii bishii Abriil ayay xoguhu sheegayaan inay diideen inay la shaqeeyaan Odawa iyo Piixi oo isna taliyaha ciidanka lugta ah oo bilowgii sanadkii hore kula dagaalamay Muqdisho iyagoo kolkaasi dhinaca Farmaajo ka socday xubnahan ay ahaayeen saraakiisha dhinaca badbaado garan dhawaan ayay ahayd markii saraakiil ciidan oo markaasi warbaahinta qaarkood la hadlay ay General Piixi ku eedeeyeen inuu iska dhigayo General uu dhab ka yahay dagaalka ayse uu jeebkiisu u yahay in sidii uu markaasi hanjabin lahaa kacdoonka shacab ee ka curtay Hiiraan iyo Galgaduud waa sida lagu eedeynayay si kastoo xaaladda noqoto Ismaaciil oo ah taliyihii hore ciidanka Danab ee iminka dhaqdhaqaaqa ka wada Wabxo ayaa markaasi isagoo warbaahinta la hadlay sheegay in amar ka yimid Odawa ay ku faarujeen ciidanka xoogga dalka Wabxo haddaba hubaal la'aan ayaa weli ka godaaman soo celinta askarta Soomaalida ee ku sugan Eritrea warbixintaas ayaan u jileeci doonaa waxa weli markaasi jirta
hubaal la'aan ku aadan xilliga ay soo noqonayaan dhalinyarada Soomaalida ah ee tababarka loogu qaaday Eritrea iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku tagay dalkaasi isbuucan markii labaad muddo 6 bilood gudahooda ciidamadaas ayaa muddo bilooyin tababar u joogay dalka Eritrea bishii July horaanteedii ayay ahayd markii safarkiisii ugu horeeyay uu madaxweyne xaasha ku tagay dalkaasi iyadoo xilligaasi markii ugu horeysay meel fagaara lagu arkay ciidan oo ay halkaasi u dirsatay dawladda Soomaaliya si looga tababaro madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safarkiisii hore bishii Luulyo sanadkan ku tagay dalkaasi dawladda Eritrea uga codsaday in ciidanka tababarka u jooga gaar loo tababaro aqeybta ciidanka cirka ayaana dawladda Eritrea uga mahadceliyay akaalinteeda dhismaha ciidanka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay bogga Villa Soomaaliya dalka Eritrea ayaa muddooyinkii u dambeeyay aad looga hadalhayay fagaarayaasha siyaasadda ee Soomaaliya ciidamadan oo dalkaasi u dirtay xukuumaddii ka horeysay ee tan Xasan Sheekh Maxamuud ee uu hogaaminaya madaxweyne Farmaajo ayaa marar badan waxa warbaahinta looga arkayay hooyooyin cabanaya oo sheegayay in ubadkoodii aanay wax wara ka maqlin ayna war uu markaas ugu wardambeysay markii dalkaasi loo qaaday ciidamadaas ayaa dhanka kale ay soo baxeen war sheegay inay ka qayb noqdeen dagaalka waqooyiga gobolkaasi waqooyiga Itoobiya ee gobolka Tigrayga inkastoo dawladda Soomaaliya ay beenisay arintaasi waxyaabaha uu ballan qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intii aan la dooran waxa ku jira arinta dhalinyarada la sheegay in tababar ciidan loo geeyo dalka Eritrea inuu si degdeg ah u soo celin doono dawladdii hore wuxuu ku dhalilay qaabka ay u maamushay kiiska dhalinyaradaasi hase wuxuu ballan qaaday in arinta dhalinyaradaasi ay noqon doonto howlaha muhiimadda koowaad u leh maalinta uu xafiiska tago waxa ilaa hadda kala cadeen askarta la tababaray nooca la tababaray iyo qeybaha ay ku biiri doonaan haddaba maxay ka dhigan tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laba jeer ku noqdo dalkaasi falanqayaasha siyaasadda ayaa u arka sababta ugu weyn ee madaxweynuhu waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu noqonayo dalkaasi inay ciidanka halkaasi jooga wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo falanqeynaya dhawaan waxa uu sheegay ciidamadaasi Soomaalida ah ee meesha Eritrea jooga mas'uuliyadooda madaxweynaha ay saaran tahay 5,000 oo ciidan ayaa halkaasi tababar u jooga ayaana loo sheegay kolka madaxweynahaasi mas'uul kasta oo Soomaaliyeed waxa ka saaran mas'uuliyad ayuu Cawad u sheegay BBC-da madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay uu ka hadlay arinta ciidankan tababarka loo geeyay dalka Eritrea waxay ahayd markii uu xilka ku wareejinayay Xasan Sheekh wuxuu sheegay ciidankaasi oo tiradoodu ay gaarayso 5,000 askari ee isku jiraan qeybaha ciidanka wuxuuna xusay in tababarka dhameysteen bartamihii sanadkii 2021 iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameeyso ayaanu diidnay ayuu yiri Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya haddaba maxay ka yiraahdeen waalidiintii dhalay ubadkaasi waalidiinta dhalay dhalinyaradaasi ayaa muddo ka codsanaya in dalka lagu soo celiyo wiilashooda waxa ka mid ah Sacdiya Mawlid Cabdi oo wiilkeedu ka mid yahay askarta lagu tababaray Eritrea waxay BBC-du u sheegtay in wiilkeedu ka maqan yahay ku dhawaad 3 sano markaasi tagayana loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha in ilmaheena noo keeno oo aan aragno iyagoo nabad qaba ayay sheegtay waxay ka dalbatay madaxweynuhu inuu cadeeyo goorta ay dhalinyaradaasi dalka dib ugu soo noqonayaan weerarka waalidiinta ee ubadkaasi ayaa soo bilaabmay tan iyo markii uu soo baxay warar la baahiyay oo sheegayay in ciidamadaasi dagaal la galeen waxa si xaalku isbedelay boqoshadii madaxweyne Xasan Sheekh oo gaar ka mid ah ubadkaasi ay la soo xiriireen waalidkood inkasta oo aanay wali cadeen goorta lagu soo celi doono Soomaaliya Xasan Sheekh waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wuxuu ku sugan yahay dalka Eritrea waxa uu kulamo la qaatay askarta dhalinyaradaasi tababarka ku maqan waxa uu dhowr goor markaasi khudbado uga kala jeediyay ciidamada kuwa xooga dalka kuwa cirka iyo kuwa badda sida markaasi warbaahinta lagu baahiyay kuwa Eritrea Villa Soomaaliya ay baahisay iyadoo la arkaya madaxweynaha oo dhowr goobood oo kala duwan iyo dhowr ciidan oo kala darees duwan markaasi khudbado ugu jeedinaya afagaarayaasha kala duwan ee dalkaasi Eritrea iyadoo ay la socdaan wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale Cabdirasaaq Eritrea oo ah mas'uul sare oo nisa ka tirsan oo isaga gacanta ku haya feelka dhalinyaradan sidoo kalena kaalin weyn ka ciyaaray geenta dhalinyaradaasi dalkaasi Eritrea iyo isku xirka Soomaaliya iyo sidoo kale Eritrea maadaama uu cilaaqaad fiican la lahaa Afzias Afwerki madaxweynaha dalkaasi Eritrea inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan saaxiibayaal daawadayaal nabadino halkan waa nuxurka wararka la garay oo shargaray daawade